kulanti wanaagsan saaxiibada sida joogtada noogu xiran fadlan ku soo dhawaada barnaamijkeena ma ogtiin ama ma ogtahay barnaamijkan oo noqon doona toddobaadkii 2 jeer ilaa 3 jeer in channelka ka baxo sidoo kale macluumaad kala duwan ayaan ku soo qaadan doonaa haddii Allah wadada ka raali noqdo waxaa kale oo noo muhiimsan fikirkiina salimka iyo talo soo jeedintiina inaad comment noogu reebtaan sidoo kale haddii taa markii kugu horeysa soo boqoto channelkeena fadlan subscribe noo saar sidoo kale muuqaalkan aad daawanaysa fadlan like saar like waxay naga dhiirigelinaysaa shaqada aan hayn inaan sii la jabaarno intaan gudu galin barnaamijkan ku soo qaadan doono qodobo aad u muhiim ah fadlan marka hore ku soo dhawaada daawadayaasha qiimaha badan channelkeena fadlan haddii taa markii kugu horeysa soo boqoto channelkeena fadlan subscribe noo saar like saar muuqaalkan waayo dad badan ay gaarayaan aragtadaana comment noogu reeb aan ku bilaawno qodobkeena koowaad daawadayaasha qiimaha badan anagu ku soo qaadan doono qodobo aad u muhiim ah daawadayaasha qiimaha badan ma ogtahay ama ma ogtiin in Shiroti Xasan ay doorbidi jirtay in magaca Buuja Ram loogu yeero xilliga iskuulka dhigan jirtay maadaama ay diideen in xilligaas maamulka macallimiinta iskuulka ay u dhaqmaan sida gabar superstar leh waayo hadafkeedu wuxuu ahaa in aan la ogaan in superstar Kamal Xasan aabeed yahay si ardayda caadiga ah loo dhaqmo balse aan qiimeyn gaar ah loogu siin arintaas sidoo kale ma ogtiin daawadayaasha qiimaha badan in Amir Khan si uu doorkiisa filimka BK luqadda reer Bujburi ee uu filimkan ku hadlayo xidigan ku qaadatay barashadeeda muddo 2 sano ah waxaana barashada afka Bujburi ka caawiyay shanti bushan oo ah qoraa reer Bujburi oo TV-da la shaqeeyo sidoo kale ma ogtiin ama ma ogtaa daawadayaasha qiimaha badan in heesta jalta diye ee filimka Bare Maratan Dan Bayo ku jirtay loo baahday 150 qofood markii la duubayay inay si joogto ah u ilaaliyaan dabka ka shidan hareeraha Salmaan iyo Soman ku heesayaan micnaha iftiinka shumacna shaqada heesta qorxinayo 150 qofood ayaa loo xil saaray inay ilaaliyaan si aysan u damin inta duubista heesta socotay sidoo kale ma ogtahay ama ma ogtiin daawadayaasha qiimaha badan in director Imtiyaas Cali ugu talagalay in duubista filimkiisa Highway 2014 lagu dhameystiro muddo 60 cisho balse kooxda filimkan ay ugu horeyso Aliya Bad oo dadaal xoogan sameeyeen ayaa ka caawisay in Imtiyaas Cali in muddo 50 ilaa maalmood filimkiisa shaqadiisa ku soo afjaran waliba tulooyin magaalada ka fog oo safarkooda dhib badan ayaa inta badan filimkaas lagu duubayay sidoo kale ma ogtiin ama ma ogtiin in superstar Sunil Dud waa aabaha dhalay Sanjay Dud ka hor inta uusan jilin noqon oo radio Ceylon ee magaalada Mumbai ku yeeleen contact wariye ka ahaan jiray mase ogtahay in Sunil Dud uu taageer u ahaan jiray atirishadii laga dambeeyay jiray barnaamijkii taasoo lagu magacaabo Narjis waxaana maalin u suura gashay inuu waraysi idaacadda kaga qaado laakiin markii uu arkay Narjis wuxuu awoodi waayay inuu hadlo afkii ayaa joogda gabay qodobkan ugu dambeeyay barnaamijkan ku soo qaadan doona wuxuu yahay ma ogtahay laba balag basra caan oo Juhi Jawla diiday inay Karishma Kapoor heer ku gaartay taariikhda ayada is xusi doonto Juhi Jawla waxay kamid ah atirishooyinka ugu caansan uguna awoodda badnaa sagaashamaadka xidigtan sidoo kale noqotay mar gabadha ugu quruxda badan India ayaa la yaab kugu noqonaysa laba balag basra caan inay gacanta ka saartay Karishma Kapoor oo finalist fanka noqotay Juhi Jawla waxay diiday dilto baagal iyo Raja Hindustan labadaba ay hogaamiyaal kale ahaayeen Amir Khan iyo Shah Rukh Khan haddaba Juhi dhawaan waraysi laga qaaday sida ay tan ay ugu jawaabtay sheekadaas dar kadib shirkadda Yashraj Films waxay ii soo bandhigtay dilto baagal balse waan diiday sidoo kale waa run inaan diiday Raja Hindustan labadaba filmin laba sabab kala doon ayaan u diiday Juhi waxa kale la weydiiyay labada actor ee aflaamta kala wadeen midkee si fiican iskugu fahmi jireen waxay tiri markii hore Amir Khan saaxiib isku dhow ayaan ahaan jirnay markii dambana Shah Rukh Khan ayaan saaxiib isku dhow noqonay waxaan xasuustaa is arkay sida uu garabka u istaagay markii xitaa hooyaday geeriyootay murugada ayuu ila qaybsaday sidoo kale isku dayay jir inuu iga qoslisiyo sababaha Juhi Jawla labada film u diiday ayaa ah in dilto baagal doorka caawinta ee Karishma loo bandhigay iyadana way diiday inay Madhuri Dixit caawiso noqoto sida ay Karishma ku qaadatay doorka sidoo kale Raja Hindustan American ay isku dhacsanaayeen xilligaas sidaasna ay u diiday isaga xitaa uu diidana inuu Juhi Jawla la shaqeeyo waqtigaas kadibna Karishma ayaa calfatay in kastoo atirishooyin kale dooq ahaan kaga horeeyeen sida Pooja Bhatt iyo Aishwarya Rai waxa halkaas inagu dhan barnaamijkeena daawadayaasha qiimaha badan sidee u aragteen barnaamijka cusub aan soo kordhinay aragtida fadlan comment noogu reeb sidoo kale muuqaalkan like sar haddii markay kugu horeysa channelka soo booqato fadlan subscribe noo saar salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh